dhinaca marka laga fiiriyo marka faa'iido badan baa ku jirto oo ah in ardayga mustaqbalkiisa almost meel la hubo uu ku socdo hadhowsan lacag la gelin markuu jaamacadda gaaro waxay keenaysaa in ardayda iskuulka laga bixiyo caqabadaas maadaama aadan qarashkaada ku filnaan karin marka angolka marka laga fiiriyo dad ba waxay leeyihiin waxaad keenaysaan caqabada oo waxbarashada waa dadka nacsiinaysaa waxbarashaduna waxay u baahan tahay ardayga kaliya maaha ardaygii iyo waaridkii oo iswato iyo macallimiintii baa horumar lagu gaaraa marka Soomaalida meesha ka liitaan waxa waaye ardayga iskuulka loo diraa wax follow up ama dabagal lagu sameeyo guriga markuu imaado wuxuu sameeyo lama socdo macallinkii ardayga la iska dhaxbaxaya anu shakhsiyan waxaan ahay dadka aaminsan nidaamka boarding schoolka in laga maarmo sabab jira awood inaha marka fiiriyo waxa arkaa in boarding ku fiican yahay waqtiga uu ilaalinayso environment waxbarashada macallimiinta oo la joogo ka agdhow wuxuu ka faa'iideysan karo xalada marka lagama maarmo dadka Soomaalida natural say u sameeyeen waa dad degdeg iyo surca ka sameeyay waxbarashada lagu sheegay shakhsiyan waxa aaminsanahay waa process iskabaayo hadaad qayb ka boodo eenkeeda aad waliga naafal lahayn adigu oo 15 si jira waxaad imaaday magaalo 12 sanaad galaas aaday 40 jir baad goormaad garaad jugaraan bal waxa dhici karta qofkii jaamacadda ka bixin haduu aabaha iyo hadii qaraabo kale ahayd inuu biilkaaga soo kordhay jaamacadda bas stress ugu darano horta inta shaqo la gaarin ka horeey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال ما أنت أي تاريخ تهي صدن كبش سديدات لوضكن لبعتني سدحدة وحنوقف سوميو برنامج عوان كيسو يهي حوجها وحبرشة كينيا هي سيدا لوجا فائدة سنكره وحسيد مدن برنامج كأني سوق بنقابسي مدرسة تلابيرسي وحنوجع عزوما برنامج كغويها الناس الصوماليات ومهم kala ahna mudane Ahmed Abdirahman Yusuf oo ah gudoomiyaha ururka Askuni Kenya iyo mudane Hussein Hassan Cilmi oo ah gudoomiyaha ururka aqoon-yahanada Barisan waxaan marka hore jecelahay inaan soo dhaweeyo aqoon-yahanada hadaan dhankayga mid ka bilaabo mudane Ahmed Abdirahman Yusuf ku soo dhawow madasha Talabiirsi adigoo nala wadaagaya sharaxaad kooban ku saabsan waa kuma Ahmed Abdirahman Yusuf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي خالد قدوميها مدشة تلابيرسي عاد بعض محسن تهي وأنا كرم هالعلينا فرصة وناكسنا والنسيسي magacaygu waa Ahmed Abdirahman Yusuf waxaan ahay gudoomiyaha iyo maamulaha shirkadda Askuni Kenya oo ka shaqeyso arrimaha waxbarashada qaasatan waxbarashada arrimaha dibadda xarunteedana ku taalo dalka Kenya magaalada Nairobi madashu waa ku dhawahay insha Allah waa mahadsantahay أدود ما سنتهاي مدن أحمد عبد الرحمن يوسف هدان أجدبو أقويهن حسين حسن علمي سودو مسؤول كسودو مدرسة تلابيرسي وكفر حسن هاي إن برنامج كان قروح البدن النجارة يبقى عادته مركب كوبات سي أقويهن ذا أما رجستياشو أي أود رجستان ونفهمه وكم حسين شرحات كوبان نجسي حسين حسن علمي مدن خالد وما سنتهاي وأن كده وهي بركلان كان مدرسة تلابيرسي ساق سواء أو شيء وأنا ما سنتهاي هندي أن واحد رسوق وبحسين حسن علمي وكوما كو حسين حسن علمي وقف كان يموض مقالهان وانين dhalinyarada Soomaaliyeed wadankan Kenya wax ku bartay kamida digriga koowaad ka sameeyay jaamacadda University of Nairobi Economics and Statistics haddana masterskii gabagabay imara jaamacadda Jomo Kenyatta University anoo sameeyay MBA in Strategic Management yaraanti dugsiga waxbarashada dugsiga hoose dhexe waxaan ku soo qaatay magaalada Garissa dhalasho waxaan ku dhashay gobolka Gedo qaasatan dhulka Diirhara la dhaho deegaan la dhaho Madax Maroodi haddii aan soo koobo marka Hussein Hassan Cilmi waa ninka hayaankiisii dhalashadiisa ka soo bilaabay Madax Maroodi ilaa hadda Nairobi Jomo Kenyatta University masters ka sameeyay in Strategic Management wad ma santahay adood ma santahay mudane Hussein Hassan Cilmi haddaan ku sii sikano barnaamijkeena oo ahaa haddaan ku celiyo xogaha waxbarashada Kenya iyo sida looga faa'iideysan karo haddaan ku bilaabo su'aasha mudane Hussein Hassan Cilmi mas'uul xogaha
waxbarashada Kenya saan wax uga ogaano xog kooban naga sii nidaamka waxbarasho ee dalkan Kenya mudane Khalid andaan isku dayo nidaamka waxbarashada Kenya wax un ka sheego si dadkana dhageysanayo mise nidaamka Kenya waxa aan ku baran faham guud oo helaan kuwa nidaamka kooban saddex heer mise saddex level waxbarasho saddexdaas oo kala si guud darajooyin kala duwan buu soo maray dhowr jeer baa manhaj kala duwan qaatay waa nidaamka kooban dugsiga hoose primary-ga la dhaho dugsiga sare secondary-ga la dhaho iyo tertiary education kamisa university iyo college ka dhigata waxbarashada sare manhajahan wadanka ku markuu xorriyadda qaatay 1963 manhajku markaa qaato waxa manhaj ka kooban 863 years I mean 763 years 7 sano waxbarasho hoose 6 sano waxbarasho sare marka dugsiga sare oo laba heer u kala qaybsanaa oo ya level ku qaybsanaa iyo ugu yaraan 3 sano oo waxbarasho jaamacadeed ay kadib 1985 ka mar labaad manhajka wadanka la bedelay waxa loo bedelay nidaam la dhaho 844 system oo ka koobnaa 8 sano oo dugsiga hoose primary education ka 4 years oo high school ka iyo 4 years oo university education ama waxbarashada sare kadib 2017 December ayaa mar saddexaad la bedelay manhajka waxbarashada ayadoo loo bedelay nidaam la dhaho 2663 years taasoo ah nidaam 2 years of primary education la dhaho oo BB1 and 2 oo laba sano hoose waxbarashada primary ka hooseysa 6 years of primary-ga iyo high school-ka oo loo qaybiyay junior school oo 3 years iyo senior school oo 3 years kadib nidaamka waxbarashada oo 3 sano markuu 26333 manhajka cusub loo bedelay oo la dhaho CBC competence based curriculum la dhaho marka si guud nidaamka waxbarashada Kenya waa nidaamka saddex heer ka kooban dhowrka isbedel oo manhajkana lagu sameeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane Xuseen Xasan Cilmi si wanaagsan baan u fahanay nidaamka waxbarasho ee Kenya iyo heerarka uu soo maray haddaan barnaamijkeena si fiican u sii guda galno saan ognahay su'aasha waxaan siinayaa mudane Axmed saan ognahay nidaamka waxbarasho ee Kenya waa la cusboonaysiiyay dhawaan haddaba nidaamkii hore ee kan ka horeeyay iyo kan hadda cusub ee dawladdu ay keentay maxay ku kala duwan yihiin midkeed adiga Axmed ahaan ayidaysa gudoomiye aad baa u mahadsan tahay waxa faahfaahin guud oo aad u wanaagsan naga siiyay walaalkeen Xuseen manhajta Kenya marxaladaha soo martay iyo hadda sida ay tahay haddaan aan u gudbo farqiga nidaamka hore oo 844 ga ahaa iyo nidaamka hadda oo mataqaana CBC da competence based ka ah farqi weyn baa u dhaxeeyo kaas oo habka ardada loo diyaarinayo oo wax loo barayay ay ku kala duwan yihiin marka koowaad waxay ku kala duwan yihiin kii hore 8 sano oo primary-ga ah iyo 4 sano oo secondary-ga ah iyo 4 sano oo jaamacadda ah bay ahayd kana waxa waaye sida walaalkeen hadii hor noogu sheegay 2 sano oo galaaska hoose oo baby-ga wixii ka soo bilowda 6 sano iyo 3 jeer ah taas waa farqi ay kala duwan yihiin farqiga kale oo kala duwan waxa kamid ah nidaamka cusub waa nidaam ardaygii u diyaarinayo faham guud iyo si physically ah ama practically ah wixii uu baranahay loo barayo kii horena wuxuu iska wax theoretically ah ama just theory caadi ah bas buu ahaa laakiin kan ardaygii bilowgiisa waxbarashadiisa min bilowgeedii ilaa uu meel ka gaarayo wuxuu fahmayaa waxa uu sameeynayo iyo wuxuu baranayo ayaa si physically loo barayaa waa competence based ardaygu waa in faham laga siiyo waxa uu baranayo iyo waxa noloshiisa mustaqbalka ah oo isku xiran waay marka ardaygu wuxuu si ficiliyan u baranayaa ama practical ah wixii noloshiisa mustaqbalka macnaha noolahayd sidoo kale nidaamkan waxa kale oo ku si fiican yahay hadda cusub ardayga waxa loo diyaariyay wax la creativity ardaygii macnaha ay noqon karaan dad wax oran karo ayagoo level hoose ah in ma taqaana ardayda waxay keenaysaa ardayda talentigooda in la ogaado ardayga wuxuu ku fiican yahay asagoo meel hoose joogo nidaamkan sidoo kale waxyaalaha uu dadka uu macnaha uu kala kaga wanaagsan waxa kamid ah ardayga waxa la barayaa wax la citizenship wadaniyadii ardayga asagoo yar la soo barayaa xuquuqda asaga leeyahay iyo xuquuqda asaga lagu leeyahay oo wadanku leeyahay waa loo shay muhiim ah marka inahaas markaan fiiriyo nidaamkaas farqiga kala duwan waa inta ayada wuxuuna kaga fiican yahay
arrimaha aan sheego kaga fiican yahay kan kale marka anigu waxa ayeysanahay nidaamka cusub oo aan isleeyahay haddii la wado waxay keenaysaa ardaygii meeshuu awal ilaa jaamacadda uu ka gaaro uu wax practical u arki jiray laakiin hadda ardayga asagoo dugsiga hoose dhexe ku jiro ayaa la ogaanayaa meeshuu ku fiican yahay wuxuu qaban karo iyo talentiga ku duwan marka taa iyadu ku fiican yahay ayaan ayeysanahay waana ma aad baad u maasantahay mas'uul haddaan su'aal kugu celiyo waxaad sheegtay in manhajkan cusub ardayga uu u fududeynayo inuu fahmo mustaqbalkiisa wixii uu noqon lahaa waxaad leedahay manhajka hore ardayga suuragal uma ahayn mustaqbalkiisa iyo wixii uu noqon lahaa inuu faham ka haysto fiican asagoo ku jiro heerka dugsi dhexe ama dugsi sare بالحقيقة سيداس واي دايركت فورورد واي أرضيدي نظامka hore 844 ardayga si theory wax loo barjay actually waxaan dhihi karaa imtixaan baa loo diyaarin jiray wax kale ma jirin oo practical ku yaraa laga yaabo practical markay jaamacadda gaaraan inay arkaan laakiin kan ardaygii asaga oo dugsiga hoose ku jiro ayaa si practically ah loo barayaa waxa meesha ka imaanaya ardaygii iyo macallinkii iyo ardayda kale inay wax walba sida maadooyinka ma taqaana science ka yiraahdo kale sida maadooyinka creativity ka tiliya art ko kale to sida kuwa sports ko kale yaani wuxuu leeyahay component buu leeyahay componentiga waa ardayga waxa looga soo dhisayaa asagoo heer hoose ah waxa arkaysa hadda ma dhici jirin laakiin hadda waxa arkaysa arday primary-ga galaaska labaad saddexaad ah oo la leeyahay beer abuura beertiga min kow seedling la gelinahay ilaa intaas ka qayb qaadanaya marka ardaygii wuxuu ogaanayaa ama cilmi u yeelanayaa beertu waxay ahayd laakiin awal ma dhici jirin aad baad u maasantahay mudane axmed haddaan su-aasha siiyo mudane xuseen mas-uul suu axmed sheegay manhajka cusub iyo midka hore farqi weyn baa u dhexeeyo kaasoo ardayda markay asaaska ku jiraan fursad fiican u siinayo in la kala ogaado qofkan waxa uu ku fiican yahay ardayguna uu fursad u helo mustaqbalkiisa heerka jaamacadeed iyo wixii ka dambeeyo waxa uu noqon karo inuu asagoo asaaska ku jiro u fahmo labadaas manhaj adiga sideed u aragtaa aragtidaada mudan Khalid waa sidoo Axmed hore ugu sheegay sababaha manhajka loo bedelay waxa ka mid ahayd in ardayga intuu suba jaamacad gaarin already la ogaaday area ku fiican yahay specialization la sameeyo tusaale hadda manhajkan dugsiga sare wuxuu ka kooban yahay 6 sano laakiin wuxuu qaybsan laba level oo junior iyo senior secondary kala by the time ardayga uu soo gaaro senior secondary school only waxa ku banaanba saddex faculty baa loo qaybiyo waxbarashada dham ayda ina art and social wax la dhaho art and science sport science ina samaysid oo farshaxanka iyo ciyaaraha iyo hawlahaas ku takhasustaalka ka baxay ayda ina social science ka samaysid oo business ka iyo other management staffs ka adgashid bas ayda ina samaysid bahal STEM loo soo gaabiyay oo ka kooban waxay u taagan tahay science technology engineering and mathematics so ardayga awal meesha takhasus lagu sameyn jiray jaamacadda hadda dugsiga sare qaybtiisa seniorka markii la soo gaaro already faculty-gaad u socotay waad ogtaa taas waxay caawinaysaa markay early age in la ogaado ardayga wuxuu ku fiican yahay area u socdo at the same time manhajka faa'iidooyin kale waxa ka mid ah awal waxa jiri jirtay two national exams oo KCSE iyo KCPE la kala dhaho midna dugsiga sare lagu dhameeyo midna dugsiga hoose hadda almost waxa jira class 3 exam baa lagu sameeyaa oo la dhaho Kenya Earlier Examinations oo unugii by the time class 3 uu soo marayaba recordkii examinationka u bilowday at the KCB level awal meesha aan jirta hadda waxa loo bixiyay Kenya Primary Education Examinations baa jiro high school sidoo kale laba exam baa jirto all this analysis kan waxay ka caawinaysaa in la ogaado ardaygan asagoo stage kowaad mara in lagu sameeyo talent allocation alignment lagu sameeyo faa'iidooyinkaas markii laga fiiriyo dhinacaas waxay caawinaysaa marka in ardaygan mustaqbalkiisa iyo heerka jaamacadda awal meesha ardayga markuu form 4 soo dhameeyo ku reeri jiray maxaad sameynaysaa hadda by the time high school 3 years ka dambe soo maraysid waad ogtaa where you are going sidoo kale waxay waalidiinta ku culays ku saaraysaa in ardayga coordination aad la samaysid oo marka high school uu marayo aad ogtaa ardayga wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku xun yahay area ku fiican yahay dhinaca marka laga fiiriyo marka faa'iido badan baa ku jirto oo ah in ardayga mustaqbalkiisa almost meel la hubo uu ku socdo hadhow san lacag gal markuu jaamacadda gaaro bas wanaagsan marka halkaas waxaan ka fahnay in manhajkan waxbarasho ardayda uu u aruuriyay wixii ay baran lahaayeen mustaqbalkooda wixii ay noqon lahaayeen ayagoon bagaan heerka jaamacadda waa si wanaagsan wadadoodii baa laga sii fikir si hadhow ay lacag u galin mustaqbalkooda haddaan raacsado hal eray ah nidaamkan waa nidaamka caalamka hadda ugu badan wadamada horumaray sida Europe iyo wadamada caalamka ay isticmaalaan
marka waa nidaam jihaysan oo jihadiisa ay saxan tahay sidaas oo kale ما شاء الله laakiin ma ahan ku darsado caqabado badan uu la imaaday oo hadda sidoo kale waalidiinta waxa ku batay qaali uu noqday ardayda awal primary waxay sameeyeen jireen 6 maad hadda maadooyin waxa la dhamaale wuxuu leeyahay waxa la dhaho learning areas a whole area oo agriculture kale oo aragga baranaya computerka early age lagu baraya marka waalidiinta hadda Kenyaanka waxa ugu badan ka cabanayaan waxa weeye costing educational costing inay qaali noqoto marka waxay leeyihiin waxay keenaysaa in ardayda iskuulka laga bixiyo caqabadaas maadaama qarashkaada ku filan karin marka angolka marka laga fiiriyo dad waxay leeyihiin waxaad keenaysaan caqabad oo waxbarashada waa dadka nacsiinaysa at the same time resources kala haysto human capital ka wadanka haysto macallimiinta kale oo ma diyaarsanaa leeyahay manhajkan cusub oo dhinaca marka laga fiiriyo dad baa ku murmaya arrintan wadanka hadda diyaar oo ma ahane dib ha nooga dhigo until later ila waqti dambe kuwa waxay ku noqon iskuulada laftirkooda oo ma diyaarsano capacity inta la eego dhismayaasha iskuulada dhisan tusaalahaan hadda manhajkan waxyaalaha lagu soo kordhay waxa kamid ah agriculture-daas iyo computer studies-kaas iskuulada ku yaala wadda gobolada marginalized sida North Eastern iyo Turkana iyo wadamada gobolada la midka iskuulada qaarkood koronto ma laha computer lab-na ma laha marka waxa leeyahay xogaha waxa imaanaysa inequality waxbarashada cunuga Nairobi iyo cunuga Mandera inay equal noqon dhinacaas markii laga fiirino xogaha challenges-keeda leedahay laakiin wax la xalin karaa aaminsanaa ra'yiga aad u maasantahay mudane Xuseen haddaan ka gudubno su'aashaas saan ognahay iskuulaadka Kenya kaalimaha hore waxa ka furan tartan markaan fiirino ardayda Soomaaliyeed ama ku noolaadeeno gobolka Soomaalida ama ku noolaadeeno gobolaha kale ee Kenya muhiimad intee leeg ayaa ugu jirto waxaan su'aashan siinayaa Axmed Cabdiraxmaan Yuusuf والله horta soo dhaw qaalid mar kale horta Kenya imtixaankeeda iyo waxbarashadeeda waa wax standard ah wadanka dhanna si siman looga qayb qaato ama dadka loo siiyo fursadda marka ardada Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin ardada Kenyaatiga ah ee wadanka u dhashay ka wax baranayo una wax baranayo fursadaha ay helayaan bay ayagana helayaan waxay ku xirnaanaysaa marka sidii ardada Soomaaliyeed iyo waalidkooda ay tartankan ka jiro si guud ahaan oo dadka dhan u furna qof walba oo ka faa'iideysan karo ka faa'iideysanayo oo ka faa'iideystaan waxbarashaduna waxay u baahan tahay ardayga kaliya maaha ardaygii iyo waalidkii oo iswato iyo macallimiintii baa horumar lagu gaaraa marka Soomaalida meesha ka liitaan waxa waaye ardayga iskuulka loo diraa wax follow up ama dabagal lagu sameeyo guriga markuu imaado wuxuu sameeyaa lama socdo macallinkii ardayga iskaga dhaxbaxaya marka meeshaas waxaad moodaa farqiga waalidka inuu ka maqan yahay farqiga waalidka ka maqan yahay waxay keentaa mararka qaarkood in ardada ay kaalimihii ay laga rabay isakeen ayadoo ayaantaan waliba arda fara badan oo Soomaaliya iskuul Soomaalida ay leeyihiin waliba iskuulada sida khaaska loo leeyahay private-ka ay performance si fiican u perform gareeyaan marka waxaan si guud u leeyahay waxbarashadu wax kala farqi ama kala saarida ma laha ardayga uu dhalay madaxweynaha William Ruto iyo ardayga maskiinka uu dhalay resource-ka ay kala haystaan baa kala duwan laakiin fursadu u siman yihiin marka waxaan leeyahay ardada iyo waalidka fursadaas ka faa'iideystaano si wada jir ah aad ma santahay mudan Axmed pointigaas aad baan u fahanay haddaan ku sii sikada barnaamijka mudan Xuseen iskuulaadka saan ognahay waxay u qaybsan yihiin laba qaybood iskuulaad boarding ah oo ardaydu ay ku xaroodaan iyo iskuulaad la aado lagana soo noqdo iskuulaadka boarding-ka ah in laga maarmi karo aragtida ah dad qabaa jiro seed u aragtaa adiga shakhsi ahaan Khaalidow su'aasha waa su'aal contemporary issue hadda jira arrimaha hadda taagan oo soo ziyaaday in wax la iska weydiiyana mudan anu shakhsiyan waxaan ahay dadka aaminsan nidaamka boarding school-ka in laga maarmo sabab jira awgeed tusaale inta badan waa dadku waxay aaminsanaan jireen waxbarashada saxda ah oo ardayga shakhsiyan qof ku adkaan karo reality-ga nolosha dhabta loogu diyaarin karo inay tahay waxbarashada boarding-ka hadda warkaaga sidii ku jirtay su'aashan koreyso Axmed u sharaxayay role baa jira waalidiinta ku leeyahay ardadooda arday qaybta macallinka iskuulka maana qayb dhan oo waalidkay ku leeyihiin haday tahay hagaajintiisa iyo tawjiihintiisa haday tahay ka warqabkiisa iyo waxbarashadiisa la socodkeeda waalidka nolosha ardayga waxbarashadiisa qayb muhiim ah oo la kala saari karin bay ku leeyihiin sida daraadeed ku waxaan aamsanahay arintan caruurta la iska xareynayo inay roolka meesha ka saarayso
sidoo kale hadda currently hadaad fiiriso dhaatooyinka ugu dambeysay la soo saaray iskuulada ardayda ee dropout ku sameeyaan mise drug addicts ay ku bartaan waxa kamid ah waxyaalaha meelay ku badan tahay boarding iskuulada maxaa yeelay waxa yar monitoringka waa yar ardayda inta badan waqtiyada galaaska 3 pm baa duhurka casharada inta badan kayaanka ay dhamaadaan wixii inta ka dambeeya ardayga ma laha meel uu aadayo waalid ka warqabo macallin la joogo ma lahan ilaa caawa hal saac oo preps la iskugu imaanay inta u dhaxaysa adiga askala waqtigaada marka jaaniskaas waxay siinaysaa ardayga qofka ilaaha hagaajiyo meesheeda laakiin maadaama qofkan qof iska yar uu yahay responsibility badan uu qaadan karin inuu wuxuu doono waqti uu ku sameeyo maadaama aysan jirin waalid iyo cid kale oo ka warqabto sidoo kale waxaan aamsanahay ardayga shakhsiyan waxbarashada ma inta buuga ku qoran waxbarasho badan waxa jirta banaanka laga barto nolosha ay ku barayso inaad bulshada ka warqabtid inaad wacyiga ka warantid in waxa dhacaya iyo nolosha caadiga oo banaanka jirta iyo businesska iyo dhaqaalaha adduunka meel u soo inaad ka warid inta badan waxa dhici karta ardayga markii boarding laga soo daa adduunka lagu soo daa inuu adduunka la qabsan waayo oo boardingkiisa yaraa qolkiisa inuu ku laabtay danta ku kalif xaaladda ku adkaad marka at the same time qofku markuu meel ku jiro qof si u xaniban oo dadkii deegaankiisa iyo asxaabtiisa iyo waalidkiisa laga dhax saaray hatta waxaan aaminsanahay mental capacity-giisa inuu ka fahmad badan yahay oo more motivated uu yahay cunuga banaanka jooga casirkan hooyadii arkay subaxna galaaskiisa u kalahay at the same time aqoonta kale leedahay waxa weeye ardayda banaanka joogto day school ka dhigad wixii surrounding ka jiro doctor waxa laga yaabaa hadhow masaajidka inaad ku aragtid cunug kale oo iskuulka la dhigto oo ku dhashay imtixaankaas sameynay oo bas ka soo qaadatid waxa macquul ah kuwaas ku dugsi aan jirteen oo ee keenay inaad aragtid adoo si iska wata daxnaqdi dadaal halka ka bilowdi laakiin markaad xiranta waxaad wala xareysan inta kama warid iskuul kale wax ka dhacay kama warid saaxiibka aad la tartamaysa ma laha nin laan looga waxa taa adduunka laga xanibay marka aqoontaas markii laga fiiriyo waxaan aaminsanahay in laga maarmi karo waliba ay muhiim tahay in noocan kale oo dheeya loo bedelo adiyat mudan Axmed isla su'aashaas hadaan ku weydiiyo iskuulada boardingka dad qabo in laga maarmi karo Xuseen uu ka mid yahay hadda aan aragnay baa jiro adiga sidaad u aragtaa walaal horta ma hasan tahay horta wax walbaba oo jiro laba dhinac uu leeyahay dhinac wanaagsan iyo dhinac aan wanaagsanayn marka Xuseen sidoo hadda noo sheegay dhinaca private-ka ayuu u badiyay wanaaga inay fiican tahay laakiin anigu waxaan qabaa wax ra'yi ka duwan waxaan qabaa markaad fiirno iskuulka boardingka iyo iskuulka private-ka aan isbarbar dhigno ardayga boarding ku suro marka xagga awqaadda ama waqtiga ama time-ka adduunka dhan horta wax maamulo waa time ardaygan xaafadda xalay soo seexday ka soo baxay laga yaabo inuu baabuur soo raacay wadadii ku soo galay jam waxa laga yaabaa aniga soo aqrisay day school garanahayo caqabadu leeyahay lesson-ka koowaad way dhaftaa kan jooga iskuulka wuxuu fursad u leeyahay iskuulkii dhexdiisa salaada ku tukaday wuxuu helayaa hal saac amal oo bribes ku galo inta leesomada bilaabay leesomada jaxu badan hal saac iyo bar ilaa 2 saac bilowdaan asaga 12 ku ka soo baxay masaajidkii galaaskii waa isku saaran wuxuu galay galaaskii hal saac wuxuu sameeyay bribes oo wuxuu diyaariyay wixii maxana ka dib yaalay oo dib u diyaarsaday asoo galaaskiis dhex fadhiyay awqaad iyo waxa uu bilowday lessonski wax dhaafay ma laha marka dhinaca ka fiirno iyo library-gi meeshuu seexanayay meeshuu wax ka cunayay wixii dhan baa saaran marka zero time ka dhumay ardayga asaga hadduu asaga qof wacnaha ana fi xisaabtan haduu yahay hadduu serious noqdo 90% ardayda boardingkana way perform gareen waxa keenana waa taayada tan labaad oo aan dhihi karo way ku fiican yihiin waa environment-ka adiga ardayga 24 hours learning environment u dhex jooga meel wax barasho adigu dadaaleyn arday kale dadaalaysa arkaysa wax aqrinayso marka environment-ka ku qasbayso inaad aqriso taayada markaan fiirinana ayadana waxaan leeyahay iskuulka boardingka baa ku wanaagsan waxa kale shakhsiyan ardayga boarding ku shiro personal building capacity building oo sameynaysa waayo wuxuu ka fikirayaa meeshuu seexanay nadaafadiisi wuxuu cunayay wixii soo dhan ka fikiraya wixii iska qabsanaya qof diyaarsan buu noqonayaa oo ku fuuxistabteen inaha marka fiiriyo waxa arkaa inay boarding ku fiican yahay soo isma dhigi karo ardaygu markii maanta uu xiisado soo qaato oo caawaytana hooyadii iyo aabihii iyo familkiisii uu waqti la qaato maskaxiyan xogaha wuxuu samayn karaa in qofkii uusan noqonin qof cabiid iyo meel ma aragtay in waalidkii bil ama 2 bilood uu moogaado caqabadaas soo kuma noqon karto ardayga maadaama
wixii dhijriya arday yar oo soo koraayo oo hooyadii iyo aabi aan ka maarmin in aragtidooda ay waxbarashada ku sii saacidayso soo suuragal ma waa sax horta waxa boarding la geenayo waa dadka secondary gaaray primary xaafaday ku akhristaan boqolkiiba 9 hal iyo meel ma ogeey marka qof secondary gaarna waa qof weyn oo baaliq ah uma baahno mataqana dadaalkaasi keenka farada u baahno qofkii hadduu ka soo baxo waxbarashadii oo 10 saac ama 5 galabnimo uu ka soo baxo xaafadda uu tago wuxuu hilmaamayaa bay'adii waxbarashada gurigu tagayo hooyadii iyo walaashiis iyo odaygii iyo sheeko galaya qaarkood waxay ku mashquulayaan telefoonada oo ka mamnuuc iskuulka ayuu helayaa wuxuu galayaa social media ayuu galayaa ardayga meesha waxa kaga dhumayso waqtigu iskuulka baxay ilaa waqtigiisa kale inuu buug arag baa laga yaabaa laakiin kan iskuulka joogo telefoonki waa laga reebay social media engagement ma laha waa buugaas environment waxbarasho waay marka ardayga markuu guriga aado wuxuu faariqunayaa janiskiisi iyo timekii uu waxbarashada siin lahaa wuxuu galayaa time kale iyo fursad kale waxbarasho iyo fursad kale la joog iyo wuxuu galayaa iyo iska waqti qaadasho marka waxaan qabaa ardayga maadaama uu gaaray nin weyn uu yahay ama gabar weyn ay tahay in boardingka ay wax badan ka kabayso waqtiga uu ilaalinayso environmentka waxbarashada macallimiinta oo la joogo ka agdhow wuxuu ka faa'iideysan karo waxaad leedahay marka lagama maarmo lagama maarmo aad baad u mahadsan tahay mudane Axmed